labada madaxweyne way fariiseen waxay ka wada hadleen qadiyadaha Soomaaliya iyo Eritrea khuseeya qadiyadahaas waxaa lafdhabar u ahaa in la soo hadal qaado xiriirka labada shacbi ka dhaxeeya labada shacbi xiriirka ka dhaxeeya waxa uu ahaa mid isdhexqaada iskaashi ah degaan wadaag ah halgan wadaag ah waxaa laga hadlay way aragnimadii labada dal ay lahaayeen xagga xilliga isticmaalka iskaashiga ka dambeeyay kaalintii ay lahaay Soomaaliya ku lahayd dalka gobonimadiisa iyo kaalintii Eritrea xilliyadii adkaa ee Soomaaliya soo maray wada hadaladii wali waa ay sii dhiman yihiin laakiin waxaa aad iyo aad loogu nuxnuxsaday ilaalinta karaamada shacabka labada shacbi labada dawladood in la ilaaliyo karaamadooda in mawaaqifta taariikhiga ah ee geesinimada ah ee labada dal ay ka qaataan qadiyadaha dawliga iyo heer gobolba la xoojiyo